walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto kambalaalkana furato laagtana dhag noo siiso way iska dhaartaan kadibna way ka danaystaan sooma markay dima qaanuun ruuxa saa'ilka ah ma asaga kursiga raba mise qolo wuxuu raadinahay laakiin lawa gooraba dadka noocaas ee madaxda iska dhaartaay dhaartu way la fududahay xaggaasuu ka dhaaran halkanuu ka dhaaran meel saddexaad buu ka dhaaran kullina uu isku qasi almuhim waxaan loo yaqaano alyamiin ad-dusturiya dhaarta marka aad xilka qaado lagu dhaarinayo ama madaxweyne noqo ama wasiir noqo ama xubin baarlamaan noqo dhaarta noocaas oo kale ah asal ahaan wax diinteenna sal kule maaha waa wax mustawrad ah waxaa la mida waxyaalaha hadda waayahan la isku ibtileeyey ka mid ah dhaarta la socota marka aad jinsiyada qaadanayso nationality-ga waddanka ama sharciga waddanka markaad qaadanayso iyadana waddamada qaarkood waa la dhaartaa waddamada qaarkoodna haddaadan dhaaranin xataa markaad sharciga qaadanayso sharciga aad qaadanayso curfi ahaan wuxuu matalayaa inaad waddanka xuquuqna ku leedahay waajibaadna ku saaran yihiin maadada ku saabsan ama aktiga ku saabsan qaadashada sharcigaas marka loo laabto ayaa cadaynaya ama foomkaad saxiixaysaa cadaynaya marka qaarkood xuquuqda ka dhalanaysa inaad jinsiyadda waddanka qaadato iyo waajibaadka ka dhalanaya waxaan qaanuunka dawliga hadda yiraahdeen mutacaarafka ah waxaa ka mid ah maalan markaad sharciga waddanka qaadanayso ama ha lagugu dhaariyo ama ha laga aamusee waxaa ka dhalanaya inaad ku qaadanayso inaad u xugum tagayso qawaaniinta waddanka ka jirta intaad nooshay dastuurka waddankana inaad ixtiraamayso طيب waddankana inaad difaaci doonto isaga iyo masaalixdiisa danaha waddankana ka shaqayn doonto haddii loo baahdo inaad ciidan noqoto oo laga maarmi waayo dagaalantana inaad ogolaanayso xaaladda waddanku uu dagaal galana inaad difaaci doonto waa waajibaadka jinsiyada qaadashadeeda ay salka ku hayso bal akthar min dalika waxa ka dhalanaya oo salka ku haya يعني الولاء للدولة دولة ماشا كردسان إن أد ولاء هيس إن أد هي ولاء هيس وحاسودن شروع ذا عن قاضنا إن الله سعته هذوك ما يسوي دي سنولي ميت دارتي بعضهم ملاها كدار دارتها ده وسعتنا بس ويدين إنسانه إنك لفت أنا وحى أو وظنه وحيالا بدن بوصل كواي صلاة مركا سيل لوجا فكذا مفروض ده المهم إن لو دارتو wax shariicada khilaafsan inaad sameynayso waa dambi waana xaraam culimada qaarna way baksii fogeynayaan hadii adoon ku dhaaran aad sameysana waa dambi hadaad ku dhaaratana waa ka sii daran laakiin waqtigan hadda la joogiyo duruuftan jirta iyo andimadan caalamka ka jirtay hadda wax badan qasbaysa la'aanteedna aan banaankaba loo bixi karin meel la aadi ama la garanaynin للضرورة علماء قاربة وبني الشيخ ابن عثيمين وقال وحوليه هاي مركز طارنا يسو دستور كان قانون كان وضنك هذه اللي يقول داري نية واحد قشتها أنت الدين توافق صن نية واحد قشتها وحي شرع توافق صن وحي كلكم تشيرو أنت قلبك قشو أفكار هذا كله كريم وحوجا سأدو قبل بات culimada qaar ka mid waxay leeyihiin inay arinta qalbiga gashada waa u banaan tahay si ay waxooga uga badbaadaan iskaal masalada ku jira majmuuc al-fiqh al-islaami ba kamida yaani wax weeyaan jihadka banaynaya almuhim shariicadeena waxaan ka helaynaa inay banaan tahay hadii wax khaldan lagu qasbayo waa masalada shuruucda qaadashadeeda ama andimo ka xoog badan in aad dulmigaas aad isaga dafciso ama xaqka aad u raadsato ama ruux muslim ama si aad dulmi uga dafciso waad dhaaran kartaa oo waxaad ku dhaaran kartaa hadal ruuxa ku dhaarsanayana uu si u qaadanayo sidii isagu rabay adiguna aad si kale u wadato waxa tawriyada la yiraahdo
markuu naftu ku keeno iska kari weydo xoogaa adigu qalbiga waxbaad gashan hadalka siduu rabo u yara egna waa dhihi adigana macno kale oo hadalka uu qaadan karo baad yaad u wadaa oo sax sidaas oo kale waa looga bixi karaa markii sidaas oo kale ay noqoto waxyaalaha ku tusayna waxaa ka mid ah xadiidka Suwayd ibn Handala oo wuxuu leeyahay waan baxnay maalin annagoo doonayna rasuulka u soconna sallallahu alayhi wasallam waxaana la socday buu nin saxaabi oo la dhigi jiray Waa'il ibn Hujrin Waa'il baa marka waxaa qabsaday dad cadowgiisa cadow baa qabsaday raggii aan wada soconnay waxay xidhiidhi ka dareemeen oo ku dhiiran waayeen inay dhaartaan oo yidhaahdaan war ninkani walaalaan hadday dhahaan walaalkana waayo waa la sii daynaa war ninkan si aan u fakinno oo cadowgiisa uga fakinno aan ku dhaaranno waa walaalkaya iyo meehe war dhaar beenayna dhaaran raggii kale markay ka istaageen fa halaftu ana bud annahu akhi fa khalla sabilahu aniga wuxuu la qiil baxayo markaasaan ku dhaartay walaalkay inuu yahay sidii baa lagu sii daayay bud markii la sii daayay nabiga uu nabi sallallahu alayhi wasallam anaga wada soconna markaasaan arintii u sheegay raggii kale say uga istaageen iyo anigu rursaan u dhaartoon ugu dhiiraday iyo sida ninkii aan u soo fakiyay markaasaan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sadaqta almuslimu akhul muslim marka tiri walaalkay way runtaa bay ahayd sababtu maxay tahay ya muslimka kale walaalkii waay sooma marka isagu muxuu u qaatay cadowgu muxuu u qaatay walaalkay muxuu u qaatay walaalka oo nasabay u qaateen asaguna maxaa qalbigiisa ku jiray walaalkii oo dhanka diinta ah qisadii nabi ibraahim iyo xaaskiisa markii laga qaatay ayaa iyaduna macnaha ku iimaanaysa marka ma dhaaranin laakiin ninka boqorka wuxuu u sheegay inay walaalo yihiin وهكذا حديث ابن ماجه وصو صار علماء قرن وتحسينينيان المهم حالتها نوعاس oo kale taa xogaa ruuxu inuu tawriyaysto oo qalbiga uu wax saxsan gashado oo tawriyada isticmaalo waa loo ogol yahay المهم hadii xaaladahaasi ku qabsadaan hadhow maxaad sameynaysaa haday timaado waxaad sameeysaa wixii shariicadaadu ku ogoshay la dal aatimid wala midaad ka timid wala midaad sharcigiisa qaadatay dhaartani iyo shaygan lagu mariyay waxaad ka raacdaa wixii shariicada waafaqsan wixii aan shariicada waafaqsan intaad ka warwareeg karto ka warwareeg wallahu a'lam laakiin sheekh lacagta dawladda ee aan ahayn mushaharkayga ma ka xajin karaa hadii uu madaxweynuhu ama wasiirku iga siiyo khasnada dawladda ma cuni karaa waa ka horeysa sooma ma qaadan karaa ma cuni karaa ma tabcan karaa ma kullu bisan karaa waa ka horeysa xajka anaga maxay xaj u nooga dhiganta xoolaha aan xaj lagu aadi karin lama cuni karo laguma la labisan karo gurina laguma iibsan karay laakiin Soomaalida waxay kaga dhigan tahay xaj un baa xalaal lagu aada oo ma la cunaa marka xaaraanta marka su'aashu wax weeyaan xoolahaasi ma xalaal baa saasay sax ku tahay jawaabtuna wax weeyaan amwaasha caamka iyo xoolaha guud ee dadweynuhu leeyahay dawladuhuna gacanta ku hayaan تصرف كودا إيو قيبين تودو ومن خصائص ولي الأمر يعني ما ملك إيا مدح ميشاس أيا إسكالة إنو قيبيو سقال لسي لكن تصرف كيسا وحولها كو تصرفية قيبين تيسو وإن عدالتكو صليسانتا مصلحة أمدنا أوفيريو كان أوسينيا كان أوقدينيا قابكو أوقيبينيا وإن عدالتنا تاي مصلحنا أوفيريو وميش اللي إذا قاعدة فقهية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة إمامك التصرف كأوكو تصرف يا الرعية ده استماد حوله هذا ممتلكات كودا دل كودا هنتي ذا تصرف كأوكو سمينا يمر والبوحي كحرنت محا مصلحة محا ضنع ومد الضنوة سيدا وحي أيو أركان إمادو مركا والغور راعية تاسي وامد هدي مركا سيدا وحلقو قسيو عدالة الرأي سنهين عدل الدلمية إنا أهين لغو قرطو عدة كو قرطين مركاسي أين المحابات إيه أين أهين واد قاضاني مركا حاكتوصي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحوليه هاي نبي إسين جري سيسمو مركاسا مركو إسيا وحان ليه جري أعطيه أفقر إليه مني رسولك الله يقباه بدن سي ضد يقباه بدن باي جري سي رسول الله
markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markalu hadana isiyay markaasaan hadana waxaan ku rasuul ilaahay dad iga baahi badan si markaasaan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bih umar qaado xoolayso sadaqayso فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وحي حولها النوع عاسكوي ما دين لغو السيو أذيقو أنوهن قلتاقين ويديسنين ونرارادين وحي صار لغو السيو قاضب الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا فلا تتبعه نفسك وحن صاص أهين لغو السينين نفت هذا الراعين marka wixii amwaasha noocaas ee dariiq noocaas lagu siiyo waad qaadan hadii aad ogtahay dariiqa lagu siiyay inay cadaalad darro tahayna waa leeysiiyay ku banayn mayso iyo dulmi iyo wuxuu ahay farsamo kale hadii lagu siiyo marka kuma banaana waa inaad iska dayso wallahu a'lam